waxaa hadda la soo bandhigay 7 caruur ah oo u dhalay afayeenkii guud ee argagixisada Cali Dheere sida oo kalena shalay ayaa labadiisa xaas ay gacanta ku dhigeen ciidamada dawladda iyo sida oo kale ciidanka macawisleyda ee ku sii siqaya degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya caruurta halkan idinkaga muuqata waa qaar ay afduubteen argagixisadu oo laga soo daayay iyo caruurtii ay dhaleen kuwaasi oo maantay lagu soo bandhigay duleedka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug barnaamijkeena ayaan idinkula wadaagi doonaa mid kamid ah hogaamiyaha macawisleyda ee caruurtii Cali Dheere gacanta ku soo dhigay oo sir yaab leh banaanka keenay iyo xog argagax iyo murugo reebtay oo ummadda Soomaaliyeed la wadaagay haddaba dhammaantiin saaxiibayaal muuqaalkan lay gareeyay dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed qof kasta oo ku faraxsan jabka argagixisada iyo guuldarrada u soo hoyatay argagixisadii 15 sano ee la soo dhaafay haysatay dawladda Soomaaliya dhammaantiin muuqaalkan laygta inoogu hiliya hal door media subscribe saarta gambalelkana furta kuma haysanideen isku soo laabasho wacan saacadihii ugu dambeeyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud duleedkeeda waxaa lagu soo bandhigay 7 caruur ah oo u dhalay afayeenka guud ee argagixisada Soomaaliya Cali Dheere kaas oo u baxsaday degmada Jilib halka wararka qaarna ay sheegayaan inuu ku baxsaday dooni ay leedahay dalkaasi Qatar uuna xilligan ku sugan yahay dalkaasi Yemen haddaba si walbaba dawladda Soomaaliya waxa ay markaasi daba gashay wararkaasi waxaana ay xaqiijiyeen in Cali Dheere uusan jirin Yemen ee uu markaasi tuubaraac wado oo ummadda Soomaaliyeed ka dhumanayo balse uu wali ku sugan yahay gudaha dalka Soomaaliya xilligaana uu ku sugan yahay degmada Jilib haddaba waxaan halkan idin kula wadaagi doonaa waraysi xasaasi ah oo aan la yeelanay mid kamid ah hogaamiyaasha macawisleyda iyo dhacdadii argagax iyo murugada lahayd ee uu maanta ku arkay caruurtii Cali Dheere haddaba saaxiibayaal ila daawada ninkan oo sharaxaya xogta yaabka iyo argagaxale walaal Cusmaanow soo dhawow waxaana loo sheegay in afayeenka guud ee argagixisada Soomaaliya Cali Dheere 7 caruur ah oo u dhalay aad qabateen adigoo ah hogaamiyaha macawisleyda halkee ayaad ka qabateen ciyaalka deegaankee ayaad ka qabateen tiradooduse ma 7daas ayaa mise caruur kale ayaa la socota ciyaalka walaal waa mahadsan tahay anagu waxaan nahay ciidamada xaq u dirirka Soomaaliyeed waxaanan howlgallo qorsheysan ka fulinay deegaano kamid ah deegaano hoostaga degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud howlgalladaasi qorsheysnaay markii aan fulinaynay xoga dadka deegaanku ayna siiyeen awgeed ayaa ciidanka macawisleyda ee ka howlgala eriyada hoostagta degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud waxa ay qabteen 7 caruur ah oo dhalay ninka Soomaali dhibaateeyay had iyo jeerna sheegta dhibaatada loo geysto shacabka Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Cali Dheere ninkaas walaalow hadda 7diisii caruurta ahayd oo uga cararay deegaano hoos yimaada degmada Ceelbuur ayaanu gacanta ku haynaa iyo 2 hablood oo xaasaskiisiiya okay waxaad noo sheegtay in caruurta aad gacanta ku haysaan oo 7 ay yihiin hadda caruurta argagixisadu oo maalmihii hore waxa soo baxay inay caruurtii la baxsadeen oo caruurtoodii iyo qoysaskoodiiba ay geeyeen Jilib maxay tahay sababta Cali Dheere oo ciyaalkiisa uga tagay ama arxan la'aantaas oo caruurtiisa iyo xaasaskiisa uga tagay maxay tahay baa isleedahay walaalo horta nimankan sharwadayaashaahu inta badan ilmahoodu waxa ay ku nool yihiin magaalooyin kala duwan oo dalka ku yaala Cali Dheerena ilmihiisa waxa uu ku haystay degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud deegaano hoos yimaada waxyaabaha la yaab kale aan aragnay in ilmuhu ay xoolo dhaqatay yihiin waxna uusan barin dhibaatooyin fara badan ay ka muuqdaan waxaanan dareemaynaa dhibaatadii uu ku hayay shacabka Soomaaliyeed in halkaasi ay ka soo baxday oo caruurtiisii xitaa uu dayacay ninkaasi dhibaatada kaleete haraadka iyo sidoo kaleete diifta ka muuqata haweenkaasi oo wow qaba lagu leeyahay wallahi haddaad aragto ilma baa ka imaanaysa aad iyo aad baa mahadsan tahay waxaad nooga warantaa oo kale maxaa ka jira wararka sheegaya in Cali Dheere uu baxsaday oo dalka Yemen u baxsaday halka warar qaar oo soo tareen ay sheegeen inuu Jilib u baxsaday Cali Dheere maxay tahay sababta ummadda Soomaaliyeed uu markaas qarinayo ama u boorbadelanayo marna u leeyahay waxaan u baxsaday doon Yemen ku taala u baxsaday marna u leeyahay waxaan u baxsaday Jilib sababtaas maxay tahay walaalo anaga haddaan nahay ciidanka macawisleyda xaq u dirirka Soomaaliyeed xogaha aan helayno ninkaasi in uu doon ka raacay meel lagu magacaabo Gaan doontaasina ay u qaaday dhanka iyo Jubbooyinka xoga waan helnay warar kale oo sheegaya iyaguna inuu dalka ka cararo way jiraan
marka hadde nimankan xilligoodii gabaldhaca ayaa la marayaa. Mar waadba dareemaysaayo haddii ilmihiisii iyo xaaskiisii uu ka cararay waa dareemi kartaa waxyaabaha kasbay iyo filiynimada intaa la eg ee la soo dareystay nimanka madaxda u ah. Annaguna hadda ilmahan aan gacanta ku hayno waa ilmo Soomaaliyeed, waxaanan ku wareejinaynaa dowladda Soomaaliyeed si dhaqan celin ay ugu samayso, noloshoodana ay usoo celiso. Caldheerana walaalow waxaan xoogaha aan haynay ka mid tahay in uu ku sugan yahay deegaan lagu magacaabo Jirib oo jubbooyinka ka mid ah. aad baad u mahadsan tahay. waxaan nooga warantaa xaasaska kooxda ama afayeenka Caldheere. xaasaskiisu waxaa la shaaciyay qabiiladooda bulshada ma la wadaagi kartaa maadaama aad tahay afayeenka macawisleyda? walaalow anigu 2 xaas baan hadda aan gacanta ku haynaa. 2da xaas gabar waa gabar Saleebaana, 3 bay u dhashay, reer Cadaada baan ka soo jeedaa ay nagu tiri. gabaruna waa gabar Abgaala oo Caysla ah oo deganaa jirtay deegaanada Caldheer sida ay noo sheegtay. waxayna u haysaa 4 caruur ah. marka isku geynta tiradana waa adugu 7 caruur ah. waxayna kasoo kala jeedaan Caldheer iyo Cadaado oo ka tirsan gobolka Galgaduud, 2 degmaba. caruurtan oo dhan waxaa la afayeenka guud ee xarakada ma jiro miyaa nin kale sida Mahad Karata iyo caruurtoodii lama qaban? maxay tahay sababtaas? walaalow anagu ciidamo xaq u dirir oo lagu kasba dagaalkaanu nahay oo xoolahoodii iyo wixii laga dhacay. marka hadda anagu nafteenna baan difaacanaynay. haddana howlgalkan aan fulinayna un ayaga baan ku baacsanaynay. meeshii baacsigu ka dhacay baan ilmaha iyo hablahan ku aragnay. marka hadda saasaan gacanta ugu soo dhignay. anagu marka ilmaha iyo dadka ay dhaleen u taargad garayn mayno nimankan dhagarqabayaasha ah oo dhibaatada ku haya shacabka Soomaaliyeed. ilmuhuna badbaadinay u baahan yihiin, sidaas baan ku badbaadinaynaa. aad baad u mahadsan tahay. kaasina wuxuu ahaa afayeenka guud ee ciidanka macawisleyda oo gacanta ku dhigay 7 ka mid a caruurtii u dhalay afayeenka guud ee argagixisada Soomaaliya Caldheere. waxaana maanta lagu soo bandhigay magaalada Dhuusamareeb duleedkeeda iyadoo halkaasi dugsiyada quraanka laga gelin doono. xaasaskiisii ayaa lagu darayaa 2 ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidanka macawisleyda sida ay xaqiijiyeen saraakiishii hore ee maanta joogtay, iyagoo oo sheegay in xaasaska argagixisada ay yihiin qaniimo laga qaniimaystay oo ciidamada dowladdu ay guursan doonaan kana ilmo dhali doonaan. haddaba daawad adigu qaybta hoose aragtidaada nagula wadaag muuqaalkan meel fog gaarsiiya. argagixisada arxlaanwayaasha ah ee Al-Shabaab maanta gabalkoodii ayaa dhacay. waxaa looga daba tagayaa durarkoodii. ilmahoodii ayaa gacanta lagu dhigayaa. ilmo Soomaaliyeed iyo hooyooyin Soomaaliyeed ayay adduunyadii dhaafiyeen, kuwa lagu hajireen, kuwa gacmaha jireen. 100 qof ayay qaarajiyeen. argagixisada arxan mala Soomaaliya aan u midowno. dhammaantiin hal door media waxaad kala socon doontaan jabka gaar argagixisada, caruurtooda, ilmahooda iyo sida loo bahdiliyo argagixisada fariimaha dagaalka lagu gowracayo ama sidoo kale markaasi lagu qabanayo. haddaba saaxiibayaal aad baad u mahadsantihiin. xogaha iyo markaasi barnaamijyada dareenka leh ee aad nala daawataan dhammaantiinna waxaan idin rajaynaynaa guul iyo gobonnimo. hal door mediana waxaad ka dhigataan wehelkiina koowaad. aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal.